laakiin waxa keenayo inay gabdhaha wariyaasha aysan guurka badan ay ku degdegan waxa waaye sababta waxay tahay horta meeshan waxaa la shaqeeyaa rag programyada jira waxaa loo qabanayaa badanaa bulshada sida leeg waxay u dhaqmaysaa gabadhaasi ninka oo kale okay for example wariyaa tahay adiga anigana wariyaa ahay saa adiga maxaa la dhahaa shaqada u qabanaysid u ordaysid u dadaalaysid oo kale anin rabaa inaan u dadaalo okay waxaan kala baranayaa ninkan raggan kala baranayaa ninka mustaqbal rabo oo guur rabo beenta ragga runta ragga khiyaanada ragga waxaas dhan la garanaa soo gabar marka inta loo imaado wariyaha la dhaho hey heblaayo soo saa jirtaa waxaan rabaa inaan heshiino ku guursado still waxay leedahay waxaan beentiisa waay nigada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلشة الصوماليات ميل والبا ودنيا الدعلة ذا آد كوكا لسوغنتهين حاند الله هاي وقتكو هاي ذو معنا ذو كنسو دو هذا channel كا حيسها ورركا انت بدن حانو اسكو داينا انانو يدين سو تبينو برامجان اسلانا هاي واي حيسينيان او واي كهليان جبادن قروح ذو بدن فنحذا اللي ادو جدان waa faadmakiin ilmooge waxay ka mid tahay bahda wariyaasha oo aan saaxiibo dhow ahayn muddada dhowrkii sano ee la soo dhaafay isla markaana aan ku wada sugnayn Muqdisho iyo Nairobi caawa halkan ayaan jecelnaa inaan waqti idin kula qaadano waana qayb ka mid ah barnaamijka xusuusta wariyaha iyo xiisaha wararka faadmakiin horta soo dhaw xiisaha wararka waa mahadsan tahay koronto aadan ku salaamayaa dhammaan asxaabta ana daawanaysan aad baan u salaamayaa waana ku mahadsan tahay maanta inaad i wareysanaysid adiga in badan baad dad warwareysana moogtahay sax maanta adiga aniga i wareysanayo horta wareysi maahan waa wada sheekaysi inaan dadka u sheekayno qisooyinka daahsoon ee qaarna inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed barnaamijkana wuxuu gaar u yahay suxufiyiinta waayo suxufiyiinta waa kuwa inta badan ku dhex jira bulshada ka dhex shaqeeya dhacdooyin kala duwan la kulma muxuu ahay sheeg wax qosol badan iyo wax naxdin leh intaba muxuu ahaa goob joog u ah marka waxaan isku daynaa bal maadaama inta badan war la soo tabiyo barnaamij la soo tabiyo dadkana wariyaasha dadka qaarna ay idaacado ka dhageystaan dadka qaarna ay TV ka daawadaan laakiin qisooyinka qofkaas xilligii muxuu heerkiisii muxuu marxaladii kala duwanaa ee soo maray oo waxaan ugu talagalno inaan bulshada uga faa'iideeyo faadmakiin bal adoo wariyaal ku arkay bal ka waran taariikhdaada wallahi ama santahay koronto ani muddo shaqeynayay horta saxaafadda waxaan toos u galay oo aan ku shaqo bilaabay 2012kii iyo 2012 baan bilaabay 2012kii waxaan ka soo shaqeeyay Kismaayo oo runtii 2013 xaalad adag dee ka jiray wadankii Kismaayo maadaama markaana ay qabsadeen Jubbaland warbaahinta markaas ka shaqo bilowdana waa Royal TV baan ka shaqo bilaabay muddo u shaqeynayay haddana ilaa iyo 2013 iyo 15kii haddana waxaan dib haddana hadda uga shaqeeyay Jubbaland TV asagana aan ka shaqo bilaabay 2015kii October hadda muddo 2 sano iyo wax ahnana ma shaqeeyo oo waxaan ahay reer Nairobi baan noqday reer meeshaan aan soo noqday jaamacad iyo waxbaan iska bilbilaaway soo hadda ma shaqeeyo alaf sugno wata وعينك وحسوا ولي واي ولي أفراس ما قالين horta waxa soo jeedin mudan gabdhaha suxufiyiinta iyo guurka muxuu ahaa sheeg waxa la yiraahdaa inta badan shaqada hawsha saxaafadda ku daahan arintan maxaa ka jiro horta gabdho badan oo saxaafadda ku jiray oo ma sha Allah hade horta guurka calaf waaye oo guursado waa la arkay ma sha Allah ayagoo shaqeynaya guursadeen ilaa iyo hadda way shaqeeyaan
gabdhana waxaa jira dee saxaafadda se u galeenba shaqa maxaa la dhahaa dhanka guurka ma fiiriyaanba. waxaan dhihi karaa horta guur waa la guursanayaa horta duu markuu ilaahay kugu talagalaa guursanaysaa laakiin waxa keenayo inay gabdhaha wariyaasha aysan guurka badan ay ku degdegan waxaa waaye sababta waxay tahay horta meeshan waxaa lala shaqeeyaa rag programyaa jira waxaa loo qabanayaa badanaa bulshada sida leeg waxay u dhaqmaysaa gabadhaasi ninka oo kale. Okay, for example wariyaa tahay adiga anigana wariya ahay saa adiga maxaa la dhahaa shaqada u qabanaysid u ordaysid u dadaalaysid oo kale anin rabaa inaan u dadaalo. Okay, waxaan kala baranayaa ninkan raggan kala baranayaa ninka mustaqbal rabo oo guur rabo beenta ragga runta ragga khiyaanada ragga waxaas dhan la garanaa. soo gabar marka inta loo imaado wariyaha la dhaho hey heblaayo soo saa jirtaa waxaan rabaa dee inaan heshiino ku guursado still waxay leedahay waxaan beentiisa waaye nigada ninkaas uga leexanaysaa. laakiin guurka waxaysan ugu degdegin waxaa waaye badanaa ragga ku dhex jirtaa badanaa ragee la shaqeysaa maasha allah. marka sidee ku ogaan karaan marka ninka inuu nin wanaagsan yahay inuu nin wanaagsan ahayn sidee ku ogaan karaan? waxay ku ogaan karaan qofkan way baranaysaa. nimanka shantaada furood ilaahay ma simin. nimanka waxaa waaye dad xunna waa ku jiraan dad fiicanna waa ku jiraan. okay anigu dadkan aan bartay ma wada xumaa dad fiicanaa ku jiro dad xunaa ku jiro rag xunaa ku jiro oo ilaahay ogyahay xaalkooda kuwa fiicanaa ku jira. marka kuwa fiican maybe inaad dhahdo oo kan oo kale ilaahay hadduu calaf iga yeelo maasha allah guursanaa. marka waxaa leedahay sababta inay raagaan keeni karo waxaa waaye raggii kala barteen. raggii kala barteen beentooda kala barteen. saacada la fadhiya haddaan kala bar marka waxaa leedahay ii sheeg waa arkay waa la kulmay haye marka ii sheeg qad adise ku aqoonsan kartaa marka wallahi dee ima gabdhahaasa la mid tahay been ima waa la mid ahay beentiisa khiyaanadiisa iyo runtiisa iyo kala garana hadduu daacad yahay welcome hadduu daacad ahayn hore usii socdo. marka inta hore usii socotaa badan haye waayo boqolkiiba waxaa dhici kartaaba 10 inay ka fiican yihiin inta kale waa banaanka adeer baay haye waa sida waa gartay ii sheeg marka beenta laga soo tago xilligan misleeda waa ay jiraan rag daacada oo jacaylkii nolosha ka run sheegaya waa aaminsanahay inay jiraan laakiin se waxay ku dhex jiraan ayagana naftirkooda waa boqolkiiba 10 waaye 90kaas kale ku dhex jiraan. sida aad uga garato dadkaas kale waa xaqiiqatan dhibaatadeeda leedahay laakiin way jiraan maasha allah. ma aaminsantahay marka ishaad ragga kii xumaa iyo kii samaa maadaama lagu garan karo in waqti la siiyo qofkaas oo fursad la siiyo dabeecadiisa waxa uu jecel yahay waxa uu neceb yahay ma la isdii karaa inta badan hadda fursad lama siiyo waqti dheerna lama geliyo? waayo fursad laysma siiyo baryahan waxaa waaye ninaa baran ama gabaraa baratay mustaqbalaa ka wada hadlaysaan just marka ugu horeyso waxyaabo yar oo yar qalqaldana arkay okay qoftan waxaaba leedahay saama ama ninaa baratay xoogaa yar dabeecadiisa qaar kamid ah baratay oo yarasisi ah hadaysaa kan dee waa ilaahay xaalkiisa. marka muhiimadda waxaa waa qofkan in la barto waqti la geliyo la isbarto laakiin hadda baryahan dee waxaa socota bro waxaa waaye waa ku arko ku caashiq wax la dhaho ma fahantay social media iska aragtay aad loogu bahalkiisma qofkan ma garanaysid inuu wuxuu ka hadlaayo. midda kale problemka jira kale waxaa waaye raggii dumarka intaba beena horta sheegaan maxaana qofka markaa mustaqbalka dhabta ah aad ka rabtid oo aad doonaysid qofka inaad mustaqbal la yeelato waa inaad runta iyo xaqiiqda dhabta ah ee noloshaada iyo noloshiisa inaad ka wada hadashaan maahan inaad been iyo halkaas ka dhacday iyo sidaa nahay iyo inaad dhahdo ma fiicno. sida saxda ah noloshaada inaad qoftaan u ogaato sida saxda noloshaada inuu qofkan u ogaado markaas waa la guuleysanaa. maadaama aad tilmaantay in
sababta gabdhaha wariyaasha inta badan ay uga waayaragsan yihiin gabdhaha kale oo sida aad tilmaamtana xog fiican ee raggii kii xumaa iyo kii samaa ay xog uga wada hayaan. Bal waxaa laga yaabaa gabdho badan oo aanan xog ka haynin misena aan dareemi karin sidee ayay gabadha Soomaaliyeed ku ogaan kartaa kan daacadda ah iyo kan aanan daacadda ahayn. horta waxaa jiraan gabdho badan oo wallaahi daacad ah oo maasha Allah ah oo wanaag raba laakiin raggii dee wax tu xun buu soo arkay oo daacad ahayn oo mustaqbal rabin oo waxba rabin tii unbuu u maleynayaa si xun ula dhaqmayaa waqti ma siinaayo adigu problem okay qoftani haddaysan arkaynin waxaan waxay ku arki kartaa xumaantiisa waxaabaa horta the first one qofkaan marka koowaad aa isbarateenba haddii waxyaabo qaldan aad ku aragtid mise waqtigaaga geli time isa siiya si fiican ula dhaqan daacad u noqo waxaa huwa markaa daacad adiga noqotid oo si sax ah qofkaan aa ula socotid oo mustaqbalka ka doonaysid inay wax waliba uu kusoo degdegayo xumaanta ninkaas hadduu xumaan kula damacsan yahay hadduu qalad kula damacsan yahay wax dhan waxaa banaanka imaanaya laakiin waa hadda adiga daacad tahay taas aaminsanahay. waa gartay waxaa jira fikrado dadka ay qayba dhan ay ka aaminsan yihiin fanku kale waxaa laga yaabaa gabadha fanaanada inay fikrado ragga qaar ka aaminsan yihiin dhinacyo kale in fikrado kala duwan laga aaminsan yahay ragga maxay ka aaminsan yihiin gabdhaha suxufiyiinta. wallahi boonti fiican waaye weligii waa jeclaanaa ka hadla boontigaas horta gabdhaha suxufiyiinta wax badan oo waxaa laga aaminsan yahay oo khalad ah saan sheega waaye shanta furood ilaahay ma simin gabdho waxaa jira saxaafadda ku jira kuwa marwooyin ah oo hadda la qabo kuwa aan la qabin oo gabdho ah oo weligood la guursanay xaqiiqda markaan ka hadlo waxaa waaye gabdhahaas raggaas wixii ka aaminsan yihiin horta wax qaldan waaye waxaa jiraan anaa hadda kuu sheegaya dumar waxaa jiraan intay saxaafadda kor intay ka maqleen gabdhaha saxaafiyiinta magacooda aday ku tumanaayo oo si qaldan leg markay saxaafadda soo galaan shaqadoon yihiin siyaabo qaldan waxyaabo qaldan ay u marayaan dhanka saxaafadda markii la arko waxaa la dhahaa oo gabar waliba wariye ah waa un sidan ha laakiin waa qalad waayo saxaafaddu gabadha way ka shaqayn kartaa wariye way noqon kartaa way shaqayn kartaa waxaa waaye intuu ninka shaqayn kara in la mid ay shaqayn kartaa laakiinse haddii la dhaho okay tan waa hiblaayo oo kale gabdhaha wariye hadda waxaa arkay niman dhahayo gabadh wariyaha yaa guursanayo yes wuxuu guursanay inaan kuu sheegaa markay sometimes saas u dhahayaan oo kale waxaa waaye way ka aqli badanta asagano saasaa dhihi karaa maxaa dheh hadduu qaldan yahay qaladkiisa u sheegay weel xisaabtame laakiin waxaa la rabaa tu aanba ilaahay ogyaho deen yaa hadleenin oo maskiin ahoo oo ilaahay ogyahay qoftaan qof waxaa waaye mihnad lahaa ka horeysa xaalad walbay og tahay eeg haddaa maanta nin guursid gaajo una u dulqaadan kartaa bas waaye arigaa tahay may dharagtiisana wana kula noolaan kartaa baahidiisa wana kula noolaan kartaa wax walbo gabadha wariyaha u samayn kartaa laakiin ragga qaarkood waxay arkeen gabdho saxaafiyiin oo just ma dhihi kara xataa saxaafiyiin laakiin way ogsiyoona u maleeyaan saxaafadduna ma ahan xaqiiqatan wax leg oo kubaddi oo kale lagu ciyaaray oo kale hadda dumar badan oo waxaa jira wariyaal ah oo akhlaaq leh oo sharaf leh oo maasha Allah ah shaqaysta ilaa iminka ciyaar haysta guursaday nolol raaxo leh ku nool marka kuwaas ma waxaa la dhihi karaa waa wadada xun inkastoo horta shaqo walba marka la bilaabay caqabadeeda ay wadato haddana warbaahinta oo kale qofku marka uu kusoo biirayo haddana qofkii uu gabar yahay oo kale ma jiraan goobaha waxbarashada ee shaqada loo doono goobaha iraada warbaahinta ee shaqooyinka loo doonanayo caqabado ay gabdhaha suxufiyiinta ah ay kala kulmaan weliba gabadhu marka ay ku cusub tahay warbaahinta waa jiraan caqabado badanaa jiraan aan xaqiiqatan aan qaarkooda maqlay qaarkooda aan arkay gabdho maxaa la dhahaa caqabadahaasoo kale ku dhacay aan arkaa jiraan qaar aan maqlaa jiraan
xaqadan wax qaldan waay waxaa waaye gabadhan eeg hadda wiilka markuu warbaahinta barto uu doonayo inuu shaqaysto uu shaqeeyo ku shaqeeyo waa ognahay dhibaatooyin badan ay jirta laakiin gabadha dhibka ee marayso isaga ma maray gabadha waxaa leeyahay waxaan rabnaa inaan saasa sameyno shukaansaa lagu galaa okay mid rabtaa shaqadan waa doonaysaa inaad soo gasho ka shaqeysa tv-gan ama idaacadan anaado inaan saaxiib noqona laakiin waa qalataa gabadhan iyada hobbigeeda iyo shaqadeeda ma aha ninkaas inay maxaa la dhahaa uu ku xiro inuu isla sheekaystaan bas waxaa u arkaa waxaas waxaa waaye xumaan okay gabdhihii yaa waxay barteen waxay leeyihiin aniga hebelaa saaxiib la ahay daadiswaa meeshaas ula shaqeeya sharaf uma ahan sharaf dare u tahay gabadhan waxaanay baratay maha hadduu ilaahay u qoro inay ku shaqaysato oo dee waxaa waaye ninkan ama naagtan ninkan meesha joogo ilaahay uma dhiibin moogtaa waxay cuni lahayd ayad haddii ay shaqaynayso oo si akhlaaqda ku shaqaynayso 100% waxaa hubaa inay shaqo fiican ay helayso laakiinse haddii aniga isku xiro ninkan agaasimo meesha ka yahay barnaamij saas u qabtaa bal shaqasa u hesha shukaanso sharaf xumo waa waxaas mana fiicno badan fadbakiin aad baad u mahadsan tahay runtii pointyada ay ka hadlayso haddaa wax yar aan sii iftiimiyo goob walba oo shaqo iyo goob walba aad rabtid inaad shaqo horumar aad ka gaartid oo aad jeceshahay caqabada ayay leedahay marka hawsha sidaa ku guuleysatid haddaa rabtid inta aadan shaqada soo raadsan isku day inaa horta soo dhisto wax aad rabtid inaa horumar ka gaartid hadday saxaafadda isa soo dhis dhankii luuqadaha dhankii muxuu ahaa sharciyadii dhankii muxuu ahaa isheeg practicalkii iyo theorygii adigoo dhisan oo diyaarsan haddaa meeshaas imaatid waxaad u baahan tahay keliya lugta qofka u geliyo oo keliya ama muxuu ahaa maamulkii iyo isbarashadii iyo haddaa adigu markaas awoodin inaad aad la kulantid laakiin haddaad meeshii soo aadid adigoon waxba garanayn adigoon aqoon u lahayn adigoona wax badan diyaarsanayn haddaa meeshii imaatid lagu arko inaadan diyaarsanayn waxaa suurtagal ah muxuu ahaa sheeg in si qaldan lagaaga faa'iideysto adigina aad wixii wax qaldan aad ka aaminto marka si aadan ula kulmin wax xun marka hore adoo diyaarsan imow dadka inta badan guuleysta ee horumarka gaarana waa dadka ayagoo diyaarsan goobaha shaqada imaado qofkii asagoon diyaarsanayn intuu meesha imaado wax qaldan lagu dhaho ama wax qaldan la kulmo misana laga yaabo in waxaas uu ku fakaro dadka qaar laga yaabo waxaas haddaad samaysid waa waxa aad horumar ku gaari kartid dad aaminsana jiro haddaad wax qaldan aad intaad ku fakartid aad samayso saas aad horumar ku gaartid waxaa ogaataa si kasto oo aad waxa shaqadaas ugu dhex jirtid qiimaha ay leedahay gabadhii dhisnayd waxaasna aanan lagu sifaadin amaba dhankaas aanan u weecan gabadhaas inay kaa sharaf badan tahay inay kaa qiimo badan tahay horumarna ay gaaraysa gabadhaas laakiin adiga haddaad si qaldan u fakarto qof qaldan oo si qaldan kaaga faa'iideysto ma weynaysid micnaha ujeedku ma ahan in goobaha shaqada ee warbaahintu in qaladaad noocaas ay ku badan yihiin laakiin waa ay dhici karaan mararka qaar caqabado noocaas waa ay ka iman karaan sababtoo ah dadka aad shaqada u raadsanaysid ragga qaar waa nafley muxuu ahaa damacaa jiri karo damacaas marka haddaad dhisan tahay lagama yaabo inuu qofkaas damaciisa iyo waxa uu damacsan yahay inay u hirgalaan laakiin hadday wax badani kaa dhiman yihiin waa suurtagal in bahasha ay kugu timaado laakiin weli waxay ku xiran tahay adiga wax walba muxuu kaa go-aan haddaa adigu leedahay mowqif inaad horumar gaartay haddaa rabtid isku day adoo dhisan inaad aad goobihii shaqadii iyo sidii aad wax u rabtay inaad aad u fuliso xoogaa dood kalaan galnay arrimo kalaan galnay arrimahan oo dhan waa wax loo baahan yahay in bulshadu ay wax ka ogaato way jiri karaan gabdhaha suxufiyiinta fikradaha qaar laga aaminsan yahay runtiina anigu gabdho fara badan oo suxufiyiin ah oo aan wada shaqeyno iyo kuwa aan soo wada shaqeynana waa ay jiraan kuwa anigu aan garab istaagay waa ay jiraan runtii aad bay u dadaalaan qaarkoodna waxay moodaanba in ani ayaga isku mid nahay oo rag ay yihiin ay aaminsan yihiin meesha aniga ka booda inay ka boodaan 90 isku dayayaan waa ay dadaalayaan muxuu ahaa sheeg dhammaantoodna inay wada guuleystaan ayaan u rajeynayaa
marka hawshan nala dheeraatay iyo doodan markaan kasoo laabano bal inta aad ka shaqaynaysay warbaahinta adiga faadmakiin ahaan maxaa caqabado kala kulantay warbaahinta waa mahadsan tahay koronto wallaahi aan intaan ka shaqaynayay warbaahinta horta aan kismaayo ka bilaabay shaqadeeda kismaayaan ka bilaabay xaqiiqatan sidaan ku bilaabayna waxaa waaye anuu TV baan ka bilaabay shaqadeeda wakiil wareed baan u ahaa Royal TV dhammaan asxaabta aan isla soo shaqaynay jirnay aadaan u salaamayaa meel walba ay kala joogaan wallaahi caqabado like dadka waxay iska dhahayaan horta meesha wakiil wareeda u ahaa aan meeshaas ku ahaa qof kor iga maamulo oo kismaayo dhexda joogo imaamulo oo halkaas samee halkaas daa sameynina dhahay ma jirin laakiin saxaafaddu xifaaltan ma leedahay dadkaas la shaqeynaysa xifaaltan aad u badan bay lahayd kismaayo waan intaan ka shaqeynay waxyaabo badan oo walahi kala kulmay waxaan kala kulmay waxay ahayd sometimes dadka qaar waxay sameynayeen boos cariirsi gabar dhanna kismaayo oo berigaas oo TV ka shaqeysa aniga ahaa marka wiilasha qaarkooda dad fiican aad ii soo dhaweeyaa jirta aan aad u salaamaya dhammaantooda oo kismaayo joogay oo aad ii soo dhaweeyey aad ii gacan qabtay runtiinana maasha allah aad ugu mahadnaqaayo dad waxaa jiray xifaaltan maxaa la dhahaa buus cariirsi oo waay gabaraa tahay kama soo bixi karto waxaa dhici jirtay dadka cameraman ay lahaadaan anaa cameraman isku ahaa barnaamijka mise waxaa sameysanayo wax walbo editingkan anaa aha sameynaya anaa sameysanayo editingkayga marka waxaas dhan isku darsaday oo qof ila shaqeynayay oo cameraman ay ahaa mise aan meesha ila joogay marka kugu kalifay in adigoo gabar wariye ah inaa editingkii kaameradii wixii oo dhan inaa adiga maxaa ii sheeg isku filnaansho caynkaasi inay gaartid maxaa kugu kalifay horta waxaa igu kaliftay waxay tahay marka hore koow aan tegayay kismaayo qaralaasi waxaan aad u salaamayaa cabdiqaadir jiijiile oo maxaa la dhahaa barnaamijka royal asaga ay waxeeyay berigaas waa la dhaawacay ana asaga isla shaqeynayna waa la dhaawacay markii la dhaawacay kismaayona waan cabaar baan ka maqnaa waan ku cusbaa systemkii waxaan arkay dadkii marka waxaan go'aansaday balbal waxaas dhan baa anigana isku qabsaday wixii dhan anaa isku qabsaday ilaahayna waxaa waaye iguma ceebin alxamdulilah sidaas waa ii sheeg adoon marku gaarta hadda markaa Nairobi timid oo kale warbaahinta ka hor Nairobi wallaahi ma isku dayin inaan ka shaqo bilaabo ma isku dayin xoogaa waa akira fadhiistay laakiin insha allah waa inaan soo laabta rajeynaa warbaahinta aad dib ugu soo laabato insha allah laakiin hadda 2 sano iyo xoogaa ma shaqeynin waa gartay wax walba horta waa fara ku hayne editingkii iyo farsamooyinkii iyo weli ma faraha ma ku haysaa oo mise meeshooda ku joojisay wallahi editingkii iyo beryahan dambe waa fara ku maay hadda koob inaan barto waay wax waliba waa fara ku hayn barnaamijda qabanaysa waa fara ku hayn editing hadda sameynaysa waa fara ku hayn so ma hadda fara kuma hayo aniga hadda ka hor waxaan xasuustaa nin baa barnaamijkii baray barnaamijkaas markuu baraayay aniga markaas fiirinayo waxaan dhihi jiray ninkaan soo waxaan ku sameeyaa yab ay ahaan jirtay wixii markuu ninkii baray muddo kadib howlo kale kuma shaqoolay waxaan ku dhahay sheeg bal ii waran howlihii fara ma ku haysaa wuxuu dhahay walaalow ma bari kartaa adiga asxaankaas ma sameyn kartaa faate marka wax walba gacanta ku haysid hadda editing software-ka muxuu ahay sheeg meelaha qaar ay ku kala duwan yihiin calaamadaha horta waa isku wada mid meesha videoga la dhigayo meesha codka la dhigayo wixii dhan waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin godadkii iyo meelihii loo raadinayay effectiyadii iyo transitionkii iyo muxuu ahay sheeg howlaha qaar croppingkii iyo wixii oo dhan marka haddaad muxuu aad taqiinay tusaalahaan hadda Pinnacle waxaa taqiina umalayaa 2 alif iyo 14 yaa shaqo ku bilowday 13kii
may Pinnacle 14 Pinnacle shaqeynaya 14 ha 13 ka shaqeynaya ha 14 aan ku shaqeynaya hadda waxaa la marayaa 23 la marayaa isbedelna wuxuu ku imaaday Pinnacle 14 15 iyo 9 iyo wixii ka horeeyay oo dhan waxay ahaayeen isku designkii oo yellowga ahaa ay ahaayeen 16 laga soo bilaabo 16 18 16 17 18 19 midka 18 ka culays zaid u lahaa 17 ka asagana muxuu ay sheeg waxba qiimeeyna ma lahayn laakiin suuqa waxa galay oo aad loo isticmaalayo wuxuu ahaa 16 ka 18 ka iyo 19 ka iyo 20 23 haddayba soo baxeen marka designkii dhan waa la bedelay shaashada oo Adobe-ka soo u egtahay madowga ayaa loo ekaysiiyay markii hore marka aad Pinnacle Studio wax ku edit gareynayso wuxuu dhumin jiray ISO iyo waxyaabo badan oo dhumin jiray hadda waa quality loo soo yeelo HD laga soo dhigay marka qofkii garanayay Pinnacle 14 iyo 15 garanayay waa in hadda ko uu bartaa muxuu ay sheeg 16 ilaa iyo kuwa kale marka mar walba wax bay bedelaan marka waxaan kugu dhiirigelinayaa hadda software kuwaas la haysatay kuwa cusub marba versional soo baxo Filmoraha marba versional soo baxo Pinnacle-ka marba versional soo baxo Adobe-ka asaga iska badaa intaas oo version uu leeyahay oo nooc iyo qaabab kala duwan laakiin uu isku wada egyihiin wixii oo dhan gacan ku hayntiina ku dadaashid software-da marka message maadaama aan ka hadlaynay gabdhaha suxufiyiinta soo gabagabeynayna message-ka bulshada u diraysa ama fariinta horta wada salaamaya dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel bay joogaan gaar ahaan bahdeeda ana waxa waaye qabiilkayga waa saxaafada dadka ah rag iyo dumar aadan u salaamaya gaar ahaan dumarka halka aan dhahayo waxa waaye fadlan isliidina waxaan ka wadaa haddii idinka aad maxaa la dhahaa shaqada macaysa inaad qabataan shaqadaas sidaad aad qaban weydo isku day mar labaad mar saddexaad mar afraad marka sharaftiina ka maxaa la dhahaa ha ku xirina dad qaarkii oo oksiyoon ahaan inaad shaqo ka heleysaan inaad wax ka samaysanaysan baahidaada haddii lagaga faa'iideysto waa dhibaato waaye baahidaada yaana marnaba lagaga faa'iideysanin isdhiirigeli adiga wax inaad qabsan karto isku day waxaaba hadda badanaa baryahanna dinsa ognahay waxaa waaye wax waliba casri si noqonaya casri marka adiga isku day horta inaad wax baratid maxaa la dhahaa waxaan inaad sameyn kartid isdhiirigeli insha Allah laakiin baahidaada marnaba yaa lagaga faa'iideysanin aad baad u mahadsan tahay Faadmo Kiin cilmooge runtii talada iyo tusaalaha ay idin soo jeedinaysana waxa ay ku socotaa waa guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed si qaasa gabdhaha wariyaasha uma saabsana sababtoo ah gabar walba Soomaaliyeed ayaa waxa looga baahan yahay in wax walba oo ay jeceshahay horumar inay ka gaarto inaysan si hoos u fakarin ay u fakarto mustaqbalka iyo horumarkeeda inay ka fakarto waxa markaas la taagan yahay inaysan baahidaada minaha ii sheegaysan ku ekaan oo aragti fog aad wax walba ka yeelato sababtoo ah waxaas dad maanta sameeyso beri way ku saameynaysaa wixii maanta adiga aad sameysay waliba waxaad ogtahay in wax adduunyo ay yihiin meel ay kula gaari karaan aadan ogeyn in muxuu ah ii sheegay ku saameeyaan aad baa looga fiican yahay waxaanu idin leenahay dadaala guuleysta horumarkiina iyo sida aad ku guuleysan lahaydeen ku dadaala intaan barnaamijka soo xirin waxaan jeclahay bal inaan muuqaaladii ugu dambeeyay aanu soo gelinay dadkii ugu horeeyay ee commentiyada ka bixiyay inaan qaar ka mid ah halkan aan ka xusno isla markaana aanu u mahad celino waxaan leenahay asxaabta nagu cusub soo dhawaada fiidiyodeena hala share gareeyo qofkii muuqaalkan kaliya uu soo gaaro si muuqaaladeena kaliya kale aanu soo gelin doona ayagana ay u helaan waxaan leenahay subscribe ka saara nala kala kiciya channelka waa channelkiini family xiisaha wararka meel walba aad joogtaan oo idin salaamina markuu wariye ila joogo caadadeeda waa aniga maba soo xiran waa tahay maror ay ugu dambeysay koronto inaan barnaamij xirxiro
واتهاي دمانتينا أصحابتا جانالك كتحان آذان إذن سلامينا إن شاء الله سو دواذا مرولب إن شاء الله دي وحان إذن كتغينا معندها سيدا إيو نبات قليو إن شاء الله كلنتي دنبا حسالة وبركاته